السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقف فوتبول شو إذا الله مركله سو دواده وانفعاني الحمد لله إذا كانوا حرجيني دمانتنا عافماد قبطان maanta qodobada aynu ka hadli doonaa waa laba qodob. qodobka koobaad kulli waa kii xasaasiga ah ee maalmahan inoo socday Lionel Messi sheekadiisa xagee maraysaa. qodobka labaadna waa qodobka ciyaarta berito la dhici doonta haddii ilaahay idmo Arsenal iyo Liverpool dhex mari doonta. haddaynu Messi ku horeyno oon de sheeko badan inooga baahnayn kolley hawshiisu waxaan u malaynayaa inay sii cakirmayso sii adkaanayso, waayo arrinkii waxa uu marayaaba in maxkamadun la isla tagaa hadhay. waayo Barcelona waxay taagan tahay anagu waqtigii lagugu talagalay way dhammaatay cabdow. haddaad doonayso inaad koox kale ku biirto 700 milyan kooxdaas aa bixiso waxaleeyahay adiguna waad dhaqaajin kartaa. ninka odagaana wuxuu taagan yahay 10 cisho kamay soo wareegin Champions League finalkii because heshiiskiisa waxa ku jiray waa 10 days after Champions League final kala ciyaaro 10 days kiina wali kamay soo wareegin maadaama hadduu la ciyaaray Champions League finalkii war maxaa leedin buu leeyahay. marka hadda arinku wuxuu marayaa Messi oo dalbaday inuu la kulmo boardka Barcelona, laakiin su'aasha aan isweydiinaya waxay tahay waa maxay sababtu Messi rabo inuu la kulmo boardka Barcelona? because haddii contractga warqadaha uu haystaa ay ugu qoran tahay 10 cisho Champions League ka bacdi unbuu xirmayaa inaad free noqoto. already Champions League inaan 10 cisho laga soo wareegin finalkiisii waxaad haysataa contractgaagii, waxaad haysataa waxda maxkamadda la tegi karto. niyad ahaan hadday Barcelona kaaga dhammaatay ya oo boardkan aanu ahayn board aad la shaqayn karto kooxdiina inta tiin karisay u dadaali karisay aad u dadaashay, why don't you just inaad iska tagto oo tiraahdo maca salaama dan hadhow tole court baa laysla tegaya courtkiina caddayntaadaad haysataa waxa ku wada hadashaan ma jiraan. marka laba unbay mid aniga ila tahay. waa midda koowaad inuu Messi shaki galay uu isleeyahay dee inaad nimanka la kulanta weeyaanoo aad iska hubiso malaha dee sida iyagu sheegayaan fasaxo waqtigii lagugu talagalay waad dhaaftee bal inaad wada hadal la furtaan. Barcelona diyaar bay u tahay inay wada hadal la furto, laakiin wada hadal ay doonayaan inay la furaan maxay tahay? waxay yiraahdeen wada hadal waan kula furana laakiin wada hadaladaas waxa weeyaan inaad heshiis cusub saxiixdo. nimankii naxariis kuma jirto. waxay leeyihiin anagu waxaanu taaganay halkii ugu dambeysay sheeka inagama dhaxayso waan kula kulmaynaa wada hadal waan kula furana laakiin wada hadaladaasi waxa weeyaan inaad heshiis cusub saxiixayso. haddii kale wada hadal ma inama dhex yaallo waxaad la timaadaa koox 700 milyan bixinaysa waana iska tegi kartaa. marka videogeeni ugu dambeeyay waxaan kaga hadlaynay inuu divorce xun noqon doono haddii divorce-kani uu dhaco. marka shakadu sidii bay u socotaa. waa qodobka labaad ee Messi aan isleeyahay wuu u rabaa inuu kula kulmo in yar uun malaha deep down inuu aaminsan yahay in kooxda wax laga hagaajin karo uu kooxdiisa sii joogi karo oo boardkan ciddii uu ka eriyi karo inta laga eriyo maadaama dadkii oo dhan isaga taageersan yihiin deetana in kooxdii dib loo habeyn karo hal sano oo kale at least uu kooxdii sii wadi karo uu isku dayi karo inuu ciyaaro. waa labadaa mid uman qabaa, waayo hadduu Messi aaminsan yahay wixiisu inay sax yihiin I don't think inuu boardka jeclaan lahaa inuu la kulmaba maadaama uu arkay dee nimankuna siday aaminsan yihiin iyo waxay rabaan. isaguna wuxuu odhan lahaa dee idinkuna weydika waxaad doontaan sameeya nabaday siduu badayayna Man City ina wada hadal u socdaan isagii Pep Guardiola dadina uu Ingiriiska ka tagay isagoo shandadiisa wata ama Faransiiska ama Talyaaniga meeshuu isagu doonayo. marka taashiki bay kaga jira kolley wada hadaladiina dee waxay ku xidhantuun inuu isagu ogolaado in heshiis cusub saxeexo waraa waayahay iyo inay boardka ogolaadaan bal inay dhegeystaan wuxuu rabo. marka bal kolley wixii kasoo baxana insha Allah videogeena dambeenu ka wada socon doonaa. Messi qodobkiisiina intaasaynu maanta kusoo gabagabeynay. qodobkeena labaad ee aan doonaya inaan isagana kelmad ka idhaahdo waa ciyaarta beri subaxdii inaga xaggeena Mareykanka galabnimadkii xagga Ingiriiska iyo Afrika ka dhici doontaa Wembley ay wada ciyaarayaan Liverpool iyo Arsenal Community Shield ka finalkiisii. kale waa ciyaartii koowaad wali kooxihii way iska soo noqonayaan oo dee ma dhamaystirna laakiin haddana marka ciyaarta loo eego waa ciyaar weyn de koob baa la kala qaadaya. koobkan waa wax historiga ku geliya waa wuxuu Mourinho waxyaabo uu tirsan jiray bay ku jiraan. marka Community Shield dad badan awood badan ma siiyaan, laakiin Community Shield-ka macnihiisu waxa weeyaan waa koobka ugu horeeyay xagaagaad qaaday uu kuu bilaamaya waxa lagugu daraya koobabka dambeed qaado. haddaad hadhow seasonka dhan waxba qaadi weyda xabadaasaa tirsanaysaa leedahay xabaddan aan haystaa waa Mourinho hadda ciyaariis. marka Lampard iyo ole
Ole Gunnar no muu aha magaciis. Ole Gunnar Solskjaer muu aha. Alla niyo ninkaas madax xanuun baa ka qaaday. Manchester goorta laga yariyay garan mayne magaxumadiisa iyo isagu isma dhaamaan. Nimankaas waa nimankii ku xisaabtami lahaa inay koobkan qaadaan. Koob buu iyaga u noqon lahaa markaad leedahay coach inaad meelaha CV-gaaga wax ku galaan. At least hadda community shield hadduu kuugu jiro waa nin koob qaaday baad. waa imika Arteta ka labadoodaba uga daayar coachnimada heerka koowaad ayaa already FA Cup-kii haysta. Marka haddii aynu iska dhaafno labadan nin odayaasha aynu ciyaarteena u soo noqono, Arsenal waxaa ku soo biiray laba ciyaartoy. labada ciyaartoyda kale muhiimadda koowaad William baynu siinaynaa oo wax star ah amba Premier League wax ka muujiyay. William baa jira consistent ahaa intuu ka ciyaarayay 7 sano horyaalka ka ciyaarayay Chelsea u ciyaarayay. Marka William muxuu ku soo kordhin karaa Arsenal? ونوغني ليفربول هاي برايسن بعيارتا كبدد ودقدق دفاعيستيدو هاف لاينka kooxda kale ku difaacaan ma jeclayn meeshooda loogu yimaado. marka Arsenal maadaama ay ahayd koox pressure-ka aad ugu dhib badan yahay, William muxuu soo kordhin karaa? Anu waxaan qabaa William wuxuu ku soo kordhin karaa Arsenal energy badan, orod badan, iyo kooxda Liverpool markay high line soo sameysay ay istiraahdo halkan ku difaaca counter attack Arsenal inuu ka sii fiicnaa karo kii hore haysay wada Mbappe iyo Lacazette iyo iyagoo markii Mbappe iyo joogeen marka horeba orod badnaa, haddana orodkii oo khibrad la socoto William ku sii biirinayo oo de kooxdii waxa ku soo kordhaya. marka waa plus ayaan qabaa William inuu ciyaarta bari ka noqon doono, Arsenalna uu meel weyn sanadkan ka geli doono ciyaartoydeeda ugu sareeya sidaan qabaan hadduu dhaawac daayo. Liverpool wax badan ku soo biiray ma jiro, hal ciyaartoy difaaci ku soo dareen, halka ciyaartoyna ma ciyaartoy booska koowaad helaya. marka Liverpool waa sideedii. marka ciyaartu tolow ma isleedahay fit bay u noqon doonaan ciyaartoyga oo dhan. ciyaartu ma isleedahay waxay noqon doontaa ciyaar xiise gelisa taawadayaasha oo ciyaar kulul oo deliseryaday noqon, mise de waa ciyaar pre-season ka ciyaari saaxiibtinimo ka horeeyay intaan horyaalku bilaamin ayay noqon doontaa, maadaama inaan wax pre-season hadda aanu soo marin oona de kooxuhu ciyaariya is diyaarinayeen aanay ciyaarin, seasonku hadduunu dhammaaday, waxyaabo badan ay qaldan yihiin. marka beriyaanu ciyaartan la kulannaba waxaan leeyahay iska qaadana maadaama kooxuhu aanay diyaar ahayn, maadaama kooxuhu season dheer ay lahaayeen, kii labaadna hadda soo galay. ciyaarta wax laga yaabaa inay noqonin ciyaar aad iyo aad magacay leedahay iyo xiisaha ay leedahay iyo ciyaarta gudaheega wixii ka dhici doona ay kala duwanaan karaan. marka hadduu aanay ciyaar dee awood badan oo dee weerar iyo weerar celisa aan la soo bandhigin inaynu iska dul qaadano, ciyaartoygu hadda waagiin qaar daalan in loo qaato because oo waqtigeedii. walow still aan jeclay maadaama uu Ingiriiskii yahay inay weli ciyaartu noqon doonto ciyaar orod badan oo si fiican loo ciyaari doono. saadaasha talow maxaynu idhahnaa? saadaasha anu waxaan ku saadaalin uun dee awoodi kala lahaayeen seasonku markuu dhammaaday, walow ciyaartii ugu dambeysay wada ciyaareen ay Liverpool iyo Arsenal ay Arsenal ku badisay 2 gool iyo gool oo markii eryanisay Champions League Arsenal waliba si fiican Arsenal u badisay. FA Cup ka ahayd semi-finalkii semi-finalka finalka ugu baxayeen ciyaar weyn. marka Arsenal maadaama heerkaas soo gaadhay way ka badin kartaba Liverpool, imkana way ka badin kartaa. Liverpoolna iyadu waaba kooxdii dee Ingiriiska 33 dhibcood ka horeysay kooxa badan oo top 4 ka soo galay, dee hadday koob qaadayso waxaan malaynayaa dhibaato badan kala kulmayn Arsenal. saadaasheedu Britola waxay noqonaysaa 2 gool iyo gool ay kooxda Liverpool ku badin doonto. cidii dhalinaysa ay weydiinin, laakiin waxaan qabaa William inuu goolka u dhalin doono Arsenal. Liverpoolna 2 gool u kala dhalin doonaan. Mane oo jecel Arsenal inuu gool ka dhaliyo iyo min idhahnaa Mohamed Salah mise waxaan idhahnaa Mohamed Salah bin gudaysanayna. Mane iyo Salah baan 2 gool, Maya Salah baan ka tegay. Mane iyo Firmino aan gudaysanayaa. Firmino uu jecel Arsenal inuu goolasho ka dhaliyo. 2 gool iyo gool, Mane iyo Firmino inay goolasho u dhaliyaan, Arsenalna William uu goolka u dhaliyo, sidaana guusha ku raacday Liverpool. kolay idinkuna saadaashiini waad qabtaan insha Allah, comment-kan noogu soo qori doontaan. videogan waxaan ugu talagalnay labada qodob ee Messi warkiisii ugu dambeeyay iyo ciyaartaas saadaasheeda inaanu bixino haddii Ilaahay raahdo. waaga football show oo idin leh is aragti dambe oo xiiso leh.